السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal labadan beri baraha bulshada soomaalida badanaa waxaa kusoo batay in la leeyahay lambar ka bilaado 233 ayaa kusoo wacayo. Hadduu kusoo waco amba waa dhimanaysaa ama taleefanka qarxayo. Waxaasna waa been, waxba kama jiraan. Lambaradaasna waa lambaro scam numbers. Marka soomaalida horta kuwa jooga Soomaaliya iyo Kenya iyo kuwa oo isticmaalay bangiyada, dadkan waxay ku soo wacayaan number 1. muhiimada ugu koowaad waxaa waaye inay ku dhahaan waxaasan ku haynaa, barnaamijkaas ku haynaa, kambaniyan anay balaa kaarkaaga geli ciwaankaas website-kaas si lacagta kaarka kugu jirto ay kala baxaan. Haddaa joogto Soomaaliya iyo Kenya, kaar maba isticmaashidba, ma u baahnid marka inaad lambarkan weliba kugu hayabo. Soomaalida Yurub joogto, kaarkiina website oo aqoon fadlan ha gelina. haddaa gelisaan lacagta cirtin kala baxayo ku tashada. Tan kale lambarkan 33 mostly wuxuu ka soo wacaa ummadda Ghana, Nigeria, UK, United States, meel laga soo wicin male. Lambarada scam numbers adduunka dhan ay ka jiraan. Saa u jeedaan hadda inta waxaa ku qoran ugu yaraan 1000 number. Lambarka hadda Soomaalida ee wado haddii aan ka dhex raadsanay wuxuu ka yahay halkan, waad u jeedaan oo malena 233 anna meesha ma ku qorin, meesha ku jira kuwaan oo kala dhan waxaan dhan oo u jeedaan waa scam numbers. waxayna raadinayaan waxaa waaye credit cardkaaga, ma ahane qof taleefanka dili karta ma leh. waxaan malkameed adduunu waqtigaaga gaarin taleefana laga dhimana ama taleefana ay u qarxayo. waxaas wax adduunka laga arka maahan, wax hadda oo bilaaban doonana ilama ahan aniga. in ilaahay laga cabsadana fiican, yacni qof waqtigiisa dhammaan inuu dhimanayo lama ahan. haddii marka aad shaki kugu jiro, waxaad raadisaa go to this website scamnumbers.info. adduunka dhan inta scam number ee la iska waco waa way ku jiraan meeshan. nambaro cusub oo xataa oo sanad isbuuci maalintii oo lagu soo daraa. saas ogaada, wax walba leenahay gelin waalidiinteena Soomaali jiran ayaa wali lagu dilin. waa mahadsantiin.